munaasabadani ballaaran oo ka dhacday degmada Ceelaf ee gobolka Sanaag ayaa ahayd mid taageero loogu muujinayo muddo kordhinta golaha guurtida Soomaaliland ugu sameeyeen madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waliba muddo kordhinta golaha guurtida munaasabadan oo goobjoog ahaayeen maamulka degmada Ceelaf waayeel waxgarad cuqaal haween iyo martisharaf kala aad u tiro badan ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay waayeel waxgarad cuqaal salaadiin xildhibaan iyo haween iyagoo dhammaantoodba ku amaanay hogaaminta wanaagsan ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halkan waxaanu si mugliyo miisaan leh aan u hambalyeynay waxaanu u hambalyeynay muddo kordhintii loo sameeyay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi xildiid ayaanu aad si mugliyo miisaan leh aan u hambalyeynay waxaanu kaloo aan u hambalyeynay guurtida waa guurtidii lagu caanamaalay waa sidii looga bartay iyana muddo kordhinta loo sameeyay aad baan u hambalyeynay waxaanu isugu nimi inaynu taageero rayigana ku taageero muddo kordhinta labada sano ah ee loo kordhiyey madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waanu taageersanahay horta waxaanu kaloo taageersanahay muddo kordhinta guurtida ee 5 sano ah baa mahadle waxaanu hambalyeynaa oo u mahad celinaynaa guurtida ka saartay buuqii ka jirtay dalka Soomaaliland ee ka xaysay sharcigii deynoo yaaliyo Turkiga qorayay ee soo afjartay shan la isugu yimi waxay ka turjumaysaa taageerada aan ku taageerayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee labada sano loo kordhiyay aad iyo aad baan u soo dhaweynayna waana taageerayna golaha guurtida ee kordhiyayna waanu mahad celinayna waajibkoodii bay guteen masiirkii adduunka weeye aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa horta muddada labada sano ah ee madaxweynaha loo kordhiyay waa u hambalyeynayna daanu reer Ceelaf weynahay waa u hambalyeynayna guurtida garatay dalkii waa ciidayaaye muddada u kordhiyana waa u hambalyeynayna iyaguna intay kororsadeen waa u hambalyeynayna dalku wuxuu ku fadhiyaa rag iyo rabbi dalku rag iyo rabbi ku fadhiyaa haddii raggii gartay madaxweynahana 2 sano ha loo kordhiyo guurtidana ha loo kordhiyo allaha baarigo labada sano Muuse Biixi Cabdi dalka burburkiisa iyo eegisiisa iyo mucaaradka iyo dhibaatooyinka haystay waxaanu leenahay Allah ku kordhiyo mid kale oo badan waxa kaliya aan ku daraynaa oo hambaliyada madaxweynaha loo kordhiyay iyo kuwa kordhiyay shanta kororsaday hal loo baahan yahay 15 ka dhigtaan waana hambaliyada madaxweynaha guurtida wasalaam alaykum waxa la kordhiyay 2 sanadood oo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo loo kordhiyay iyo guurtida oo kamida xubinta ugu lafaysa Soomaaliland waxay nala tahay kordhinta madaxweynaha inay tahay halkeedii la dhigay ay tahay tingiyo very much waa ku taageeraynaa guurtiduna waa sidoo kale ayana waa ku taageeraynaa muddo kordhintii xukuumadda uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa muddo kordhinta haddaanu nahay shacabka degmada Ceelaf ku dhaqan anigu mucaaradka iyo muxaafidkaba waxaan leeyahay war hal la iimaansado muddo kordhinta waa wax wanaagsan waxna ina yeelimayso kan maanta aanu madashanaanu ku taageeraynaa oo aanu intayada tan isugu nimi inta maqana aanu ku metelayna haddaanu nahay waayeelka iyo maamulka iyo dadweynaha halkan fadhiya ee degmada Ceelaf weyn taageerada muddo kordhinta ee loo sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee labada sano ah ee bisha 30keedii ay guurtidu u kordhisay ayaanu taageeraynaa mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 madaxweynaha qaranku Muuse Biixi Cabdi waa ninkii ugu waxqabad badnaa dalka guurtidana dalka waa badbaadiseen dhibaata ka badbaadiseen ilaahay ha idin xafid golaha guurtida iyo madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa muddo kordhinta loo sameeyay insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo kordhintaas inay isbedel weyn dhasho waxa weeye dalka deegaanadooda runtii waliba ka deegahan gobolka Sanaag ee degmada Ceelaf
in runtii aynu ku aragno isbeddel weyn madaxweynahana waanu hambalyeynayaa golaha guurtida muddo kordhinta ay sameeyeenna waa ku hambalyeynaynaa muddo kordhinta iyo haddii alla ka dhigo golaha guurtida iyo madaxweynaha loo sameeyeyna waa taageeraynaa shacabkuna haddii alla ka dhigo ha ilaaliyo xasiloonida waxaan soo dhaweynayaa muddo kordhinta madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga somalilan muuse biixi cabdi ee ay u sameeyeen golaha guurtidu aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa horta marka hore waa taageersannahay labadaba sida ay madaxweynahana ugu kordhiyeen iyaguna isugu kordhiyeen waa taageersannahay inta kaliya aan ku kordhinayaa wax weeye qoladan baarlamanka iyana marba dhinac u yaacaysa war sidaa bal qolada guurtidu ay wax isugu raaca baan leh dhammaantayo aan isugu soo baxnay inaannu taageerno muddo kordhinta ay sameeyeen golaha guurtidu ay u sameeyeen madaxweynaha labada sannadooda iyo kororsiimada golaha guurtida waanu ku hambalyeyn xafladan la isugu yimi halkan maanta waxa weeye muddo kordhintii Soomaaliland cado badan bay leedahay waxaan oran lahaa madaxda isaga jawaabaysa meerfashiyada warka maanta joogaana ka aan maanta joogin ee mucaaradka isaga ka mas'uula ka maanta kursiga doonaya ee mucaaradka ahna bari hadii la hayo qoraysho Allah bari ayuu kursiga ku fadhiisan doonaa muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee qarankan ka taliya iyo golaha guurtida hambalyaan leenahay madaxweyne waa ku soo dhaweynaynaa haddaanu heer ceelaf weynahay waan ku soo dhaweynaynaa madaxdayada waxaan ku taageeraynaa oo aan ku hambalyeynaynaa mid kastoo madaxweynaha oo soo mara dalka Soomaaliland gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Celefin Maxamed Aadan Digaale maayir ku-xigeenka degmadaasi Maxamed Jaamac Liibaan Hindi xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Celefin Cabdicasiis Salebaan Ismaaciil taageerada madaxweynaha muddo xileedka loo kordhiyay 2 sano iyo golaha guurtida iyaguna ku dhashay 5 sano loo kordhiyay ayaynu ku taageeraynaa munaasabadan muddo kordhinta ay sameysay golaha guurtidu taasoo ahayd madaxweynaha oo 2 sano iyo iyagoo 5 sanadooda ku taageeraynaa go'aankii ka soo baxay golaha guurtida ee ahaa in 2 sano loo kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha guurtidana 5 sano ay kororsatay kaasayna haddaynu nahay shacabka reer Celefweyn maamul iyo madax iyo majaba aynu ku taageeraynaa waa taageersannahay waynu hambalyeynaa ومحمد سوت التلفزيون كقرن كسمالان علفوين